aan jeclahay insha Allah ta'ala inaan idin tilmaamo waxyaalaha muhiimka waxa kamida cilmiga markaad baranaysaan waa inaad ka fogaataan waxyaalaha macaasida waxyaalaha dunuubta الابتعاد عن المعاصي يعني ذنوبته هي معصيته والذنب يولا كي سيرك يا كواوين به ذنبك هي معصيته يدو إلهي أكتيس دي عقوبات يدله هذا عقوبات كذا وحكم ذا علمك أدبرنا يسوع يلاوع وجيسته قلبك عجي وسخين قلبي قنا علمك مركو قادنا وحقوقاتها نور يفتين بوليه صوما يعني قلبك إن دوليه سيد القرآن كتلمان نور نوليه نور كعلمك هي نور كقلبك مركي إسهلان أيا علمك وقلبك قلا هدي نور كي قلبك أي معصية دمسو ويكسو كمرتو علمك ومجد بيا مركا قلبك ومجد بيا قلبي مركا وسقيسني قلبي مركا وسقيسني ما يستاهل مركا نور كعلمك إن لجليو يعني واتي إمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي شيخ يزي وكيع وحان أشيك تقولي حفظي وحفظ الله علمت وعد كات مركا سوح يقولت لي محاسدك فوق مرة بدأنا علمي حق حفظه أود برته مع صدق فوق دمي فوق سامين ومركا ليه هاي يعني وحوي سيد ضاعاتك إيو عباداتك مركا سامين السبع أي إلهي كوجس سهله علمي يا واتقوا الله ويعلمكم الله عبسدا ويسوق شرط معصيات كفوقات إيو واجبات كود جودة الدين تطلقا ولا تمادو وحي فرقوا يهين علمي برشديس إلهي واكو فضيني يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فرقانا وحق باطلك حق يعني وحي كلا صار إلى حق باطلك أيا إلهي تبارك وتعالى كو سهلية ومركاد كفوقاته وحيالها محوء هاي معاصيدة وحيالها حنات كفوقاته وحنكسو قبقبينيا ومهمة أريدين دردار مياه وحلي هذا علو الهمة علو الهمة وحوية إناد قصة كاغا يوجد هذا ميل صريع إناد كحله ميل سكي حق بصنن وين بقى إلهي القبر يا أمغش ويل يرهد إلهي القبر ده ويل كيربا وحلو وشوي marka weel weyn iyo niyad sare iyo qasad sare baa la doonayaa inaad ku hawlgashaan qasadka ugu sareeya meelaha soksoke noloshaada markaad wax baranayso oo diinta baranayso cilmiga baranayso barashada cilmiga camal iyo dhaqan markii laga gudbo waxa ugu muhiimsan waxa weeye himada sareen idin tilmaamayana ay tahay in aad raadiso wax la yiraahdo al-imama fi ad-din al-imama fi ad-din al-imama fi ad-din maxaa la yiraahdaa waa in aad noqoto hoggaan dadka khayrka iyo wanaagga ku hogaamiya waa in aad noqoto muallimu an-naasi al-khayr dadka ruuxa wanaaga ugu baaqo bara waa martabada quraanku aad u amaanay nusuusta quraanka iyo sunnadu jagooyinka aad baa looga deyriyay manaasibta aad baa looga deyriyay iska ilaaliya la yiri cid qabanaysana yani waxa loo xiray shuruud adag baa loo xiray laana khatarteeda badan laakiin hal mansib oo waxa jira quraanku aad u amaanay jaga شكذا سمعتها الإمام في الدين يا لو ميلود القرآن كسارت حاكم إذا يا وجعلنا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام سورة فرقان آخر كذا سمعين
wajcalnaa lilmuttaqiina imaama wajcalnaa lilmuttaqiina imaaman allow kuwa kaa baqa hogaamiye nooga dhig imaamku waa hogaamiye khayrka ku hogaamiya dadka ya nabiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam allah tabaaraka watacaala wuxuu ka dhigay imaam waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahunna qaala inii jaaciluka linnaasi imaama nebi ibraahim waa la imtixaanay imtixaankiibuu ku baasay abaalgud ilaahay wuxuu uga dhigay inuu imaam ka dhigay imaamku ka salaada tujiye keliya maaha ya imaamku salaadayna tujiye waa imaam laakiin imaamka ka laga hadlayo waa imaam ka guda weyn kana muhiimsan ka salaadayna tujiye maxaa ka horeeya laakiin reer bani israa'iil sidoo kale ilaahay tabaaraka watacaala muxuu yidhi wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun marka imaama fi ddiin baa la yidhaahdaa maxaa lagu gaadhaa waxaa lagu gaadhaa imtixaan dheer markaad marto ayaa ilaahay bixiyaa soo ma saas daraaddeed baa ibraahim markii la imtixaanay id ibtalaa ibraahiima rabbuhu waa la imtixaanay bikalimaat waa takaaliif markii la imtixaanay faatamahunna si dhammaystiran buu imtixaankii uga baxay waa ka baasay imtixaankii markuu ka baasay natiijadu maxay noqotay inii jaaciluka linnaasi imaama marka bilaash laguma helo ya wax intaad sanduuq meel dhigato cod iigu rida aad lahayso maaha intaad sanduuq meel la dhigo u codeeya ninkii imaam fi diin noqon lahaa ma jirto wax loo galana maaha wax dhaqaalo lagu gatana maaha laakiin waa wax ilaahay bixiyo bixinta ilaahay bixiyana say ku timaadaa iyadana waxay ku timaadaa addoonka oo intuu dadaalo imtixaanaad badan ilaahay mariyo imtixaanaadkii ka baasa markaasaa ilaahay wuxuu siiyaa magac iyo sumcad iyo wanaag iyo cilmi uu ummadda ku hogaamiyo ku anfaco khalqiga ku anfaco allah tabaaraka watacaala wuxuu siiyaa qabuul buu dhulka u dejiyaa in la aqbalo dadku hadalkiisa maqlaan wax laga qaato cilmiga laga qaato la dhagaysto la intifaacsado yuu noqdaa waa kii xadiiskii nabiga sal alla alay wasalam lahaa allah tabaaraka watacaala addoon markuu jeclaado jibriil buu u yeedhaa jibriilow hebel waan jeclahaye jeclow buu alla leeyahay jibriil baa jeclaanaya malakul jibriil baa wuxuu dhawaaqaya malaa'igta samada kor u dhawaaqa wuxuu leeyahay malaa'igay hebel ilaahay baa jeclaaday idinkuna jeclaada waa la jeclaanaya malaa'igtiina way jeclaatay markaasaa ilaahay dhulka wuxuu ugu soo dejinayaa aqbalkii iyo jacaylkii markaasaa waxaa jeclaanaya dadka wanaagsan oo dhan soomaali dadkao dhan ma aha dadkao dhan ku wada jeclaan maayaan ha sugin dadku inay ku wada jeclaadaan oo ku wada ammaanaan ya taa waxa weeye waa waxaan la gaari karin waa rida annaasi gaayatun laa tudrak dadkao dhan inay ku wada jeclaadaan oo raalli kaa wada noqdaan waa waxaan la gaari karin waa laakiin dadka qiimaha leh ee wanaagsan ee saalixiinta ah inay ruuxa jeclaadaan oo aqbalaan oo ku kalsoonaadaan oo wax ka dhageystaan oo cilmigiisa ilaahay uu barakeeyo waxay ku imaanaysaa in muxuu ahaay aad ilaahay uu kaa dhigo darajada iyada ku siiyo marka halkaa hamiya gaar ahaan waliba waxaan rabaa inaan idiin sheego ummadeennan dadkii culimada u ahaa intoodii badnaa way tageen qaar badan waa tageen qaar waa sii socdaan dadkii dhaxli lahaa oo booskaa buuxin lahaa waa idinkay in idinla mida marka inaad isu diyaarisaan soo maa suna isu diyaarisaan maa waa meel bannaanaanaysa oo ninkii ka tegayo oo wax dhaxlaya aan lahayn adigina u diyaar garowdo soo maa ood qaadato bilaash baaba meel cidlaaba laga qaadanaya
marka isu diyaariya ummadda muslimkana badbaadadeedu waa taa badbaadadeedu waa in mar walba laga helo dad culimo ah oo diintii u haya oo u fatwoodo oo toosiya oo saxa oo waxbara ya haddii kaa la waayo culimada ummadda laga waayo dallu fa adallu wa kinabi sallallahu alayhi wasallam waa lumeen iyagana waa lumay ummadana waa luminayeen iyaguna waa lumaya waxa soo baxay dad aan aqoon lahayn oo diinta garanaynin oo culimo iska dhiga oo fatwo been oo khariban ummadda ku khariba oo jariiqa ka leexiya ilaa iyagii baa leexsan waxaas marka culimo noqonayo quraasta cilmiga ku fadhiisanay marka kuwaas la doonayaa inaad ka gaadhaan kuwaas baa la rabaa inaad ka gaadhaan oo iyaguna ishalaagi ummadana halaagi laana ruuxu markuu jaahil yahay haduu la yiraahdo waan fatwoonaya fatwadiisaaba diliba ummadana way kharibi soo garanaysaa ninkii iska duurgalka ahaa ee culimada la mooday wadaadkii duurka isaga cibaadeysanay ninkii 100 kan ruux dilay 99 ka dilay 9 waa dhigi cab 99 nafood buu qabaa markaasuu yiri warnin culimaa oo su'aal weydiiyo balaal itusa dadku ruuxii cibaado badan ba moogta culimay moodaan waayaha damana kii qamiis qabo cimaamad qabo sheekh baa la moodaa social media intuu soo baxayna warkiisa iska badaaba culimo social media soo baxay qaybta Allah astur mid iska wadaado iska cibaadeysto oo iska asturano bay sheekh moodeen marka sadeeyan sheekha u tag kii buu tagay war sheekhow 99 nafood yaan qabaa toobad ma leh wuxuu garan waayay xataa dhigi cabka naftaada ka badbaadso markaasuu yiri toobad ma leh qortu ka jar isaga tira meel xun ka taalay 100 buu kaga dhigay asagii markuu dilo ka takhalus حتى فقه حمديس وحو قرواي وريك دي يعقو سغالي سغاشن كنفودي لو كدلي اسكا صصب او سي اون كغب فكو فتوديسي بادش markuu ka tagay buu wuxuu war waxaas ii dirteen sheekh ma ahayne nin culimo ii sheega hadana nin culimo oo diinta yaqaan loo sheego waxa war kaabalka ut kii uu tagay wuxuu 100 buu qabaa 99 hor ma ahayn hadda 100 baan qabaa waay toobad male wuxuu ku yiri oo yaa adiga iyo ilaahay naxariistii adiga yaa idin kala teeday yaa ilaahay ka xigo toobad keen qaabku u toobad keen lahaa buu u tilmaamay وهكذا نينكي سيدي بو إلهي توبدي سكو أخبر مركا وحوي أقون حمدا هذا الشيخ كل نقط نفت هذه كدلي ما اللي يدعو عن حغرين يا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله موافقات كيس أيوه حقوق يعني ودمدي المسلمين تميت كم بده مركي يصابح هو كان عصرك وقريها إيوه محوها يصابحين ayaa waa xilligii ay shiinaha may ruush wadamadii wilaayadkii ruushka ku xigay waa marka ruushka dagaalamaya waa xilliga ay qoriyuhu soo baxeen hubka iyo soo baxay marka nin madax ka ahaa ayaa wuxuu u yeeray culimadii wuxuu ku yiri war hubkan soo baxay ee qoriyaha ee naariga ما كود دغالنا oo shariicadu ma inoo ogoshay culimadii baladku suukaale markaas waxay ku yiraahdeen sunnadii nabigu waxay ahayd in seef iyo waran iyo leeb lagu dagaalamay sunnada nabiga khilaaf warkii buu qaatay la sunna nabiga khilaaf hadii ninkii madaxda ahaa sunna nabi khilaaf maayo waayahay qoryaha wuxuu yiri leebabka iyo qaata iyo seefaha ka hortaga ruushka eber baa laga dhigay dalkiina waa la qabsaday marka wuxuu leeyahay waa fatwo ahmaq fatwadiisa waxaas marka diintu ka turjumaya ummadii waa baabiyay dalkeedina gaal uu gacan galiyay فتوى النوعاس وكلا أمرك وحوي ضلوا وأضلوا وحاس أمرك أمد علماء النقنو مرك دم أمد اللمين وحلدون يا مرك إناد السود يا رسان أمد إناد دين تهدي أدون كهدي يمحوها يوجان كهدي يعلم النمد هدي يفتوى هدي إناد محوها ودي أرجرودان
rag iyo dumarba oo aydan kaliya waxbaan laqmaysanay kaliyadan dheh waliba waxaan doonayaa inaan idinku baraarujiyo waayahan dambe jaamacadihii dadkii ka soo baxay islaamiga ahaa waxay noqdeen waa ma dhaylaysoobeen jaamacadihii ma dhalays ma maqasheen ma dhalays yani waagii hore culimaa ka soo bixi jirtay oo saamayn leh waayahan dambe waxaa ka soo baxay jaamacadihii ka soo baxaya intooda badan weeye muthaqafiin dad iska aqoon-yahana shahaadooyin soo qaatay shahaadooyinkiina wadiifo iyo shaqo ku raadinaya cilmigii marka waa dabar go'ay jaamacad madiinu ka soo baxay umulqura buu ka soo baxay jaamacad imaam buu ka azhar buu ka soo baxay imaam buu ka soo baxay haddana maca dalika waxa weeye hamigiisu ma aha hamigii culimada ma aha wixii marka waa sii dabar go'aya waxay u baahan tahay dabaqabashay u baahan tahay halkaa marka higsada halkaa laaca Soomaali halkaa laaca inaad ummadda culimo u noqotaan hogaamisaan waana meesha ugu fiican waa inaad professor noqoto cilmiga caafimaadka ama aad noqoto madaxweyne noqoto ama aad noqoto wasiir noqoto ama aad noqoto siyaasi aad noqoto caana ama qoraacana aad noqoto Soomaali ama engineer aad noqoto iyo inaad caalim diinta xambaarsan noqoto keeron يا مع السكان شتان ما بين السماء والأرض مركا مال في عم بعد عكس صارتين كود دالة إن شاء الله تعالى هل كان يكسد بإذن الله تبارك وتعالى قارهان هبلها إيا قبلها وحنديه لها إيا سيقونية إلى إيا هذا ويريهين قبل الصوماليات آد ويريهين إن لهلو قبل علماء ومراجعة oo fatwooda oo la yiraahdo sheekh hebla u taga sheekh hebla waa yarta hadda waayaha daba gabdhaha ay soo baxaan muxuu ahay haysta shahaadaad sare haysta laakiin maca dalika ilaa iyo hadda lama hayo ilaa intaan ogsoonahay muftiyad la yiraahdo waa muftiyad hebla lama hayo waqtigii nabiga soo dumar ma jirin dumar baa jira masaayisha cilmiga loogu noqdo khatar ah oo ragga xataa waxa weeye luqunta intay qabtaan kala fiiqi jiray oo masaayisha intay ku qabsadaan aan laga fakan jirin Aisha oo kale Soomaaliga insan Aisha masaayishi ay saxaabada ku istiraagtay kitaab dhan baa laga qoray istiraakaatu Aisha oo rag waaweyn oo saxaabada kamid ah intay qabato bay kala fiiqi waa dumar marka cilmigani wuxuu ahaan jiray cilmi rag iyo dumar ba u dhaxeeyo meelaha cawiisaadka la furi kari waayo saayisha qaarkood dumarka furi jiray oo loogu noqon jiray rag culimada waaweyn ugu laaban jiray marka gabdhaha hablaha waxaan leeyahay Soomaaliyeed meeshaasi waa maran tahay masaa'il waxaa jirtay xataa nabiga sallallahu alayhi wasallam يعني wax weeyaan intuu ka xishoodo ka warwareego dumarku xalin jireen saxaadiidkii saxiixaynka ku yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam gabadhu u timid rasuulka ilaahay seen tahara qaata marka caadadii u dhacda qabaysanayeen uga qabaysta nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam qabayskii wixii uu sheegay mara qaado udgi isku daahiri waxay tirseen isugu daahiriya wuxuu yiri isku daahiri deeseen isugu daahiriya isku daahiri halka nabigu waa dhaafi waa sallallahu alayhi wasallam maxay ilaa halka wixii ka dambeeya dumar baa sharxi kara Sooma meel nabigu sallallahu alayhi wasallam ka xishoonayo waa Aisha la joogtaa markaa gacanta qabatay oo gabadhii u sharaxday nabiga hadalkiisa sallallahu alayhi wasallam isku daahiri muxuu ka wadaa Soomaarta marka dawrkii dumarka ee ahaa dhanka diinta waa laga helay hadda gabdho culimo wax akhriya kuwa muxuu ahay majaalka akademiga ilaa muxuu ahay PhD iyo doctor xambaarsan laakiin ilaa hadda waxa maqan gabadhii muftiyada ahayd wayna kala duwan tahay gabadh doctorad ah iyo gabadh muftiyada way kala duwan tahay Sooma mufti iyo doctor way kala duwan tahay marka waxaan raadinaynaa wax weeyaan
وقبل استيعاب العلوم شريعة أو اجتهادي كريس وعلماء اجتهادي سي مسائش مستجدات كي نوازيش كي اجتهادي سقيب كالنقط وقضايات كقار كودو دمر كوسابسون لو عليو مرجع نقط هو شاس وهو المقن مركا الله يدين بركيو دلال إن شاء الله تعالى إلهنا توفيق هيدا وافجيو waxaan idinku gabagabeynayaa oo asaasa marka diinta baranaysaan oo cilmiga baranaysaan idinkuna is ixtiraama culimadiina ixtiraama culimadiina ixtiraama shaayikhiina ixtiraama muxuu ahay qadariya abaal buu kugu leeyahay ninka diinta ku bara binaadanka laba goor buu dhashaa mar hooyadii uu ka soo baxay caloosheeda uu dhashay markuu wax bartana uu dhashay marka macallinka wax ku barayay حقوق احترام بدن بكوليه مركز الله فريسانيسو آدابتيدي مركز wax weydiinayso markaad cilmiga ka qaadanayso see sheekhaga loola dhaqma طبعا waxaan u malanayaa kutubta aadaab dalabka inaad wax badan ka aragteen aadaab dalabka waana mas'aladii culimadu dhihi jireen yaani wax weeye aadaabta dalabku way ka horeysaa cilmiga waagi horsaas la bari jiray ardaygu intuu yar yahay waxa la bari jiray aadaab dalab oo waxa loo qaban jiray xataa nin la yiraahdo muadib xataa madaxda ilmahooda waxay u qaban jireen muadib nin la yiraahdo marka aadaabta marka la baro iyo sida loola dhaqmo sheekha sida saaxiibka loo sida ardayga saaxiibka wax baranaysa loola dhaqmo marka aadaabta la baraa kadib cilmiga la bari jiray waa mid keentay inay culimadeenu ka qoraan kutub fara badan oo aadaab dalab ku saabsan yani al-faqih wal mutafaqih al-imam al-khatib al-baghdadi alayhi rahmatullah iyo آداب الطلب الشوكاني إيو تذكرة السامع ومحوها نكلي جري ابن جماعة يسوقون ميزان أخلاق العلماء أجر إيو يعني وحويان كتب كساب سمواي سيبا شيخ قال الله رقما شيل الله رقما أرضك وحكولا برانيا علمي قال فهانتي سيل الله رقما أد بمهم متحق قضبك إساقا كتبتي سنة وافلة إن شاء الله تعالى وحبا كآخر ستين الله يدين بركيو وكل إرادي إلهينا تبارك وتعالى التوفيق هنا وفجيو الله تبارك وتعالى وحا برانيسان الله يدين فضوديو علمي قاد برانيسان مد نافعة أو يدين أنفعة ومدنا أتكو أنفعدان الله كردقو مشايخ دينا يا علماء وحا يدين برانيسان إلهي تبارك وتعالى ميزان كان حسناتك الله وصاروا دذلك ودنا من نفع له وأن ضيع من الله كردقو هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد